dabatalada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa ay yihiin waxa ay kala miirmeen kowdii bishii November sanadkii 1969 oo la soo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood. su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegeystayaal ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan. cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1972 waxa uu weydiiyey goorta ciidamada xeryahooda ay ku laabanayaan. waxa uu ku jawaabay wallahi jeel hadalkaas waa balbalaaray wuxuu u balbalaaray sida hadda adigu u fakarayso ama hadda meesha ka timid looga fakaro iyo sida halka aan uga fakarayno waxa suurtooda inay kala duwan yihiin. marka haddaan ku jawaabo saan halka uga fakarayno baan kugu jawaabaya waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeraleyda iyo dadka shaqli weynaha iyo askarta inay dad isku dadayihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalata hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsada inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay manin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dibkana uu dibkiisa yahay dantanada anaguna way nooga shaqeynaya Soomaalina khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beer nagu dul samaysanaya oo daar nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala meel ka buuxsanaya Soomaalin daacadaha xuquuqda jecel iyo horowkaca ummadda kulligeed oo idil annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa. marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya يعني مثل حكم عسكري باتري أنا مو يهدي أنا واجي ورا عسكري أهانش تدان اللي قلت المامين انتيسي كيا هي صوتك كده اللي يرضى متعلمين تا والرعاية تا وضلك تشوفي صو ما هي يعني حتى بس واحد لا يمد أقول شيء دوا قرنا هي election قرمات صنعين إنسان أياد إلى هذا تاسد الصعوبة حقين أساس باللغة فكر هي واحد صنعين دونا مركي ضدكو وهذا بهير في عم اسمر هي أي maskaxdiisu ay sida aan u sheegay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa marka talada ay goosanayaan iyo ninkay xulanayaan labadaba ay yaqaaniin mid wax ugu yaala oo iyaga maslaxadooda hogaaminaya inuu yahay mid maslaxadooda ka horjeeda inuu san noqonin